shaah iyo sheeko maalin wanaagsan maanta waxaan rabaa halkan inaan ku soo gudbiyo qodob ka hadlaya xukuumaddii dargiga loo yaqaanay ee ka talin jirtay waddanka Ethiopia ka hor 91dii xukuumaddaas oo madax u ahaa ama madaxweyne ka ahaa Mengistu Haile Mariam haddaba maalmihii ugu dambeeyay Mengistu Haile Mariam iyo lafdhabarta xukuumaddii raashiyaanka u ahayd waxay kala qabsaday ayaan rabaa inaan halkan ku soo qaado waxa uu ka tegay hadal calaacal ah oo taariikhdana u galay maalmihii ugu dambeysay oo xukuumaddiisa sida dhacday Mengistu markuu xukunka la wareegay waxa uu qaatay siyaasaddii shuuciga oo wuxuu noqday dadka ugu xag jirsan maalmihii uu ku soo biirahayay waxay ahayd markii la rabay in la isku keeno Yemen kulan ka dhacayay asaga iyo Soomaaliya dowladda Yementa koonfureed xilligaas oo uu ka qayb galay Fidel Castro haddaad xasuusataan intiina akhrisay ama la socotay Fidel Castro warbixin uu ka qoray xukuumaddii Soomaaliya ama shakhsiyan Maxamed Siyaad Barre waxa uu xusay inuusan shuuci dhaba uusan ahayn ee uu ku shaqaysto marka uu xusayo waxa uu la hadlay safarka markuu ka yimid oo uu Jarmalka bari uu yimid buu madaxweynaha Jarmalka bari u sheegay hadalka wuxuu kaloo ku daray in Mengistu Haile Mariam uu ka shuucisan yahay Maxamed Siyaad Barre cadayna ay u tahay safarka intuusan soo gelin uusan Yemen imaan waxa uu dilay generaaladii loo tirinayay inay taabacsan yihiin siyaasadda reer galbeedka ama shuuciyadda ka soo horjeedaan intaasoo generaal asagoo dilay buu wuxuu yimid shirkaas Yemen ka dhacayay waxayna isku arkeen Fidel Castro wuxuuna uga warramay siyaasaddiisa iyo qaadashadiisa mabda'i hanti wadaagga haddaba waxa uu safka hore ka galay dalalka Afrikaanka wadamada ugu horeeya oo ugu xag jirsan hanti wadaagga ama shuuciga waxaa soo raacay waddankii la oran jiray Angola oo kale Soomaad arag baa soo raacday Russia oo Soomaaliya gacan ku lahay gacan siin jirtayna meeshuu ka saaray oo Russia ama wadamadii bariga oo dhan waxay la safteen Mengistu haddaba waxaa dhacday maalmihiisii ugu adkaa ama maalmihii uu u baahnaa inuu gacan ka helo raashiyaanka iyo meesha looga dhaqaaqayban baa taariikhda lagu xusaa iyo hadalkii calaacalka lahaa oo ku hadlay markay ku soo xoogayseen jamhadihii la oran jiray TPLFta iyo ELFta oo kala Tigreega iyo Eritreyaanku ay xoogga yeesheen dagaaladooduna uu tabar u waayay ayuu wuxuu u diray wafti waa 1988 wafti uu hogaaminayo ra'iisul wasaarihii xilligaas Ethiopia oo Fakre Salaase la oran jiray waxa uu heliyay wasiirkii difaaca oo General Tasfa Gabre la oran jiray wasiirkii arrimaha dibadda oo Burhanu Baye la oran jiray iyo taliyihii guud ee ciidamada Ethiopia oo Lagasa Asfaw la oran jiray waftiga markay tageen waxay raashiyaanka u sheegeen dalabkii ay u yimaadeen iyo inay siiyaan qalab military oo iskugu jira waxay warsadeen hub dheeraada iyo diyaarado siyaasad iyo dhaqaale in laga taageero iyo inuu raashiyaanku si cad u muujiyo garab istaagooda midowga Sovieti wuxuu ugu jawaabay hal qodob
oo oranaya annagu ma wadi karno dagaalka qiimaha intaas la ku kacaya. Ethiopia waa inay xallisaa arrimaha gudaheeda. jawaabta markay kala soo laabteen Mengistu way u cuntami weyday. isla sanadkii xigay 89kii buu wafdi kala diray. wafdigaasi waxaa hogaaminaya asagana wasiir ku-xigeenkii difaaca oo Addis Tedla la oran jiray, wasiiru dowlihii arrimaha dibadda oo Kasa Kabeda la oran jiray, iyo General Haile Gorgis oo ahaa sirdoonkii militariga Ethiopia. waftigaas sidoo kale waxay dalbadeen diyaarado cusub in la siiyo taangiyo iyo gargaar militari oo dheeraad. raashiyaanku sidii oo kale bay u soo cayriyeen. waxayna u sheegeen inaysan u hayn dagaalkay ku jiraan tabar ee ayagu laga rabo inay la heshiiyaan dadkooda. waftiga markuu soo laabtay Mengistu way u cuntami weyday, laftigiisa baa baxay. Soomaaliya hadalka taariikhda galayna markaas uu oranaya. Mengistu wuxuu la kulmay Mikhail Gorbachev oo ahaa madaxweynihii Raashiyaanka xilliga iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda oo Edward Shevardnadze la oran jiray, iyo General Dmitry Yasov la oran jiray, iyo Valentin Volin ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibadda. generaalku hore wuxuu ahaa wasiirka difaaca. intaasuu la fariistay Mengistu. hadalkii calaacalka lahaa ee laga qoray taariikhdana u galay waxay ahayd, wuxuu yidhi maxaad noo dayacdeen? waxaan qaadanay aragtidiinnii shuuciyadda iyo hanti wadaagga ku dhisnay. waxaan raacnay nidaamkiinnii aad noo dejiseen. hadda ayaad dhabarka noo jeediseen ama naga jeedsateen, oo ah markii aan ugu baahi badnayn. maxaad nooga tegaysaan meesha cidlada? ma u qalannaa in maanta annagoo marxaladdii ugu liidatay ku sugan inaad naga dhaaqaaqdaan? Mikhail Gorbachev wuxuu ugu jawaabay sidii oo kale, hal eray buu ugu jawaabay oo ah, ma sii wadi karno dagaalka aad ku jirtaan ama dagaalo shisheeya oo wadamo ka baxsan midowga Sovieti ka socda. xilligii ama siyaasadiyadii Raashiya waa isbedeshay. Ethiopia waa inay la hadashaa mucaaradka. hub walba oo aan idin siino ma ahan mid wax ka bedelaya goobaha dagaalka. Soomaaliya hub walba oo la idin siiyo waxba ka bedeli maayaan goobaha dagaalka. goobaha dagaalka waxa wax ka bedelaya waa miiska wada hadalka inaad fariisataan lana hadashaan. hadalkaas wuxuu ahaa kii ugu xubaa oo uu maqlo Mengistu, waana markay u caddaatay inuusan waxba uusan hayn xukun dambe uu salka ku sii hayana aysan sii jiri doonin. waxa uu awal gacan uusan ka haysan waddamadii reer galbeedka, ushii kaliya uu haysayna maantaasay gacantiisa ka baxday. marka waxaa laga soo qaataa waxa weeye laba eray oo muhiima. xilli waxaa jira awood walba lahaw haddaad rabtid, laakiin moralka iyo niyadda aad ku sugan tahay markaas waxba ka bedeli mayso goobaha dagaalka waxa ka dhacaya. soomad arag marka tusaale waxaa loo soo qaataa hub walboo la siiyey Ethiopia xilligaa jabhaduhu waa ka furanaya. ma ahayn hub la-aan, ma ahayn, laakiin waxay rabeen, waxay u hayseen waxa ay haystaan wax kasii weyn inay raadshaan ma ahane hub la-aan maysaane. marka waxaa la tusaa waxaa laga soo qaataa laga xusaa qodobka waxa weeye marxaladda aad ku sugan tahay, dhaqaalaha marka laga fiirsho, siyaasadda marka laga fiirsho, moralka marka la fiiriyo, saddexdaas marka aad u liidatid, awooddan kaloo hubka adoo taagan baa lagala wareegaya. waxaa kaloo
loo soo qaataa hadalkaa calaacalka ahaayo oo Mengistu uu yiri ma annagiiba waqtiga aan ugu baahida badnayd miyaad naga dhaqaaqaysaan siyaasadahan ku dhisan wadamadan dibadda inaysan mar walba waddanka adigu waxaad leedahay aysan ahayn siyaasadda aad waddankaaga ama aragtida aad waddankaaga u qaadaysidna inay noqoto mid jiritaanka waddanka mar walba ka turjubaysa mogta mid maalin intaad qaadatid qolo aad raacdid meel cidla ay kaaga dhaqaaqayso markay danaheedu isbedelaan noqon mayso mid jiritaanka dalka iyo dadkaaga ilaalinaysa marka waxaa laga bartaa waxa weeye isbedeladaas waxaa laga bartaa siyaasadda in waddanku waxa uu leeyahay ama danihiisa asagu ay mas-uul ka yahay inuu ku qoondeeyo siyaasaddiisa dibadda mogta soomad arag aadan ku qoondayn sida wadamada galbeedka ama bariga soomad arag labadaba aadan sal uga dhigin oo isbedelka danahooda ku dhisan labaduba marka cashar waxaa looga qaataa Mengistu calaacalkiisaas waxaa looga qaataa dabagalka waxyaaba aadan lahayn inay sidaa kugu dambaynaysa mogta soomad aragti aadan lahayn siyaasad aadan lahayn inaysan marnaba ka turjumayn waxa dhulkaaga dalkaaga iyo dadkaaga ka socda soomad arag marka taariikhda lagu dhigaa hadalkan iyo isbedelkan waxa laga dhaxlay waxa ku xigtay Mengistu inuu asagoo taagan hubkii lagala wareego waddankana ka baxay soomad arag nimankii ka dambeeyeyna isla waddadiisii ay mareen oo Tigreega la oran jiray ayaguna sidoo kale loogu shaqaystay aragtiyo kale ay xambaareen maalintii ugu dambeysana meel bannaan looga dhaqaaqay hadda kuwa joogana waa la mid weeye mar walbana dhinaca ayaga haddaan fiirinana waa la mid weeye soomad arag marka waxaa ku jira cashar wax laga baran karo soomad arag barnaamijkeennii shaah iyo sheeko maanta intaasu ku egyahay kiisa dambe aan iskugu nimaan maca salaama